munaasabad ballaaran oo lagu soo xidhay tartan ciyaareed loogu magac daray wehel iyo walaal ayaa habeennimadii xalay ahaa ka qabsoontay hotel Nasteexo ee magaalada Burco waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay maayirka magaalada Burco xubno ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco badiba haldoorka iyo dhalinyarada bahda isboortiga ee gobolka Togdheer ugu horeynba waxa kulankaasi iba furay warbixin koobanna ka bixiyay Ibrahim Saleebaan Maxamed Hanuuniye oo ka mid ah dhalinyarada ku hawlan horumarka isboortiga gobolka Togdheer inagu taabinayna oo inagu wixii laynagu dhaho joojinayna wixii layna tarayna waynu guuleysanayna qodobka kale wuxuu yahay isboortiga gobolka Togdheer muddo badan waxaad arkayseen cabasho iyo istarka markaynu inagu wax istarno aynu noqono dad inagu isgacan qabta oo ninba ninka kale u taageero ninba ninkii guuleysta loo haneeyo wallahi markaas aynu guuleysana laakiin markaynu wali ku fakarayno hebel baa waxa sameeyay adna samee ama hebel waxa uu sameeyay muxuu yahay iyo wax la mid ah intaynu isla garab socono tartan baad sheegtay waligeyn bayna kor u soo qaadmayn magaalada Burco isboortigoodu insha Allah ta'ala niyadda gasho walaal way soo noqon doontaa maalmaha kamid ah arki doontaa gobolkii Togdheer meeshii lagu yaqaanay isagoo gaadhay iyo isagoo dhaafayba waxa iyaguna madashaasi hadallo kooban ka soo jeediyay xubno kamid ah macallimiinta ciyaaraha gobolka Togdheer iyo bahda ciyaaryahanada magaalada Burco inagu waan marka hore wax la nimaadno maayirku waa kalsooni buuxda ka qabaan anigu afkiina ku hadlaya kalsooni buuxda ka qabaan qof kasta oo meesha ummadda ugu jiro hadduu siday tahay shaqada u taalo uu qabto dhammaantiin waan guuleysanaynaa marka waxaan odhan lahaa maayirka garoonka haddii dadka caafimaad lala doonayo yaan lagu furin horta meesha ciyaartayda ilaa inta roog loo dhigay run baynu isu sheegaynaa maaha garoon kubadda cagtu ciideedu waxay dhimatay 2014 tiimabka maanta gobolka dhisan waan aragnay ma kala leh heerar la'aanta A iyo B iyo Z ay gobolada leeyihiin laakiin sida barkowta waxa uu sababa inaga uu sababa maamulka gobolka Togdheer hadii uu deetiin waxa noo sheegtay waxa tiraadaan garoonkii waqtigaas furayna geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka ee Now gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga kulmiye suxufi Khalid Bakayri iyo xildhibaan Khadar haddaan nahay ururka qaranka ee Now aan gudoomiyaha ka ahay waxaan ku garab taaganahay dhalinyarada gobolka Togdheer ee degmada Burco inaan hiil iyo hoob isla kin garab taagi doono insha Allah bilmilaahi kariin ciyaaruhuna runtiiba muhiimad qiimo badan bay qarankeena ugu fadhiyaan haddaanay muhiimad lahayn dee lama sameeyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha muhiimad iyo qorshe iyo siyaasad bay dawladdu ka leedahay wasaaradda dhan loo siibay marar badan waan idin mahad celinayaa waxaanan idin leeyahay barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen maanta Burco waxay haysaa dhabo wanaagsan oo ah dhinaca ciyaaraha hadii aynu si xoojinana halkaas ayaynu ka sii horumari farxad bay noo tahay waxa samcad u ah markasta isku xidhnaataan isku xidhnahay ayaa samcad u ah waxaan rajaynayaa inaan noqonaynin kulankii koobaad iyo kii labaad soo noqon maayo markaas waan soo arkaynaa gabagabadii waxa munaasabadaasi soo afmeeray maayirka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad waxaanu ku dheeraaday muhiimadda ay dhalinyaradu u leedahay qarankani wiigan mustaqbalka Hargeysa inta diilay ka dhigo ama waxaan ka keeni doonaa garoonkii ilo SOS way meel kasto aan istaagno oo dhalinyaraan ku wada hadallo masaajidka dad salaad ku tukamada ka soo baxay lagu garoonka maxaa laga damcay waxa la yimid habaalka daawuska waxa la yiraahdaa malaha inta duusho malaha ugu qurux badan dadku waxa yiraahdaan nabar buu leeyahay sidoo isu qaadayo yumbu nabarkiisa oo eegay markaas ka bishtirahda waxaan noqonay daawuskiyo saan isu leenahay ciid kaama horeyso ma inay yaro reeb raay xolnaya ma yar maxaa garoonkii laga damcay markaas naga banjareys wiiga dambe waan tagay Hargeysa qabanaya hadii la naftaydaayay ama wasiirkii quus baan ka keenaya oo inagoo reer Burco aan isku tashan doonaa ama wax baan ka keenaya la afgarto taa waa ballan qaaday Maxamed Xasan Diiriye Maxamed Joker telefishinka caalamiga Ariel TV magaalada Burco